qaar ka mid ah ardayda kaalmaha sare ka gashay imtixaankii shahaadiga ee lagu dhawaaqay sanadkan aynu ku guda jirno ee 2017 oo Ariel TV ugu waramayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoog leh ka muujiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland waxa ayna ka cabanayaan deeq ay sheegtay inay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ay ardaydani ka heleen dalka Itoobiya kadib markii ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ay deeqdaasi waxbarasho u sheegtay ardaydani waxay sheegeen inay soo gudbiyeen faylalkii iyo shahaadooyinkii looga baahnaa in xilligaasi loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland gabi ahaanba haddaba ardaydan oo sida ay carabka ku dhufteen ka kala yimi gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ardaydii kaalmaha ka gashay imtixaankii shahaadiga ee dalka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen inay ardaydani ilaa iyo imika wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare deeqdaasi ay hore ugu baaqday ay sheegtay inay dalka Itoobiya ugu deeqay aanay gabi ahaanba waxba ka haynin iyagoo marka ay wasaaradda yimaadaan kala kulma soo noqosho badan iyo ballama aan meel gaarsiisnay waa sida ay hadalka u dhigeen waxayna wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ka dalbadeen inay ardaydan ay u sheegaan waxa ay ugu tala galeen ardaydan oo ah ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland sidoo kalena waxa ay sheegeen inaan haatan jaamacad gudaha oo ay gali karaan ayna jirin gabi ahaanba iyagoo sheegeen inay guud ahaanba jaamacadihii la qaatay ilaa ay qaarkood isku dayeen inay bal dib u gali karaan jaamacadaha dalka haddaba ardaydani sidoo kale waxa ay sheegeen inay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland u gudbisay arrintooda dhinaca wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland markii ay tageen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay askartii halkaasi joogtay gabi ahaanba ka hor istaageen inay galaan oo ay fushadaan arrimaha ay u socdeen haddaba ardaydani waxay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Ilaahay madaxweynaha xilka ka sii degaya ka codsadeen in arrintoodan wax lagala qabto kullite anagu waxaan nahay ardaydii sanadkan scholarshipka Itoobiya ay siisay Soomaaliland ka baxay markii hawlo badan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland la soo hadlay la yiri arday noocaas oo scholarship 180 arday ayaa hadda laga rabaa Soomaaliland ay wasaaradda waxbarashaduna ay soo amartay maamuladii dugsiga iyo macallimiinta ay soo amray ardayda noocaas ee ugu sareeya dugsiyada inay si degdeg ah dhaqso u soo galaan caasimadda Hargeysa una sameystaan baasaboorradii iyo sidii dhaqso ay ugu bixi lahaayeen anaguna sidii baan ku nimidnay Hargeysa hawsha sidii baan ku galnay sidii baan baasaboorradii iyo ilaa 8 cisho loo qabtay aan ku dhameystirnay oo waqtigayga iyo hawlaha ku fulishanay ka bacdina wasaaradda waxbarashada waxay nagu tiri hawlaha markay soo dhamaadaan anaga la soo hadli doona la soo xiriiri doona ka bacdi markay saan noqotay intii timekay noo qabtay oo dhamaaday anaga Hargeysa ku soo noqonoo nimidnay marka waxaan Hargeysa intaas cisho u joognay maalin kasta wasaaradda waxbarashada waxay naga lahayd waqtigiinu dhow yahay timekii dhow yahay toddobaadkan bay hawsha soo baxaysa toddobaadkan bay dhowday informationadii waa la diray waa la gudbiyay waxa la dhahaa Cabdiraxmaan Aadan Gelle waxaan ka socdaa gobolka Salel gaar ahaan degmada Saylac waxaan ahay ardaydii kaalmaha sare ee Soomaaliland ka gashay gaar ahaan iskuulka Sacaadadiin oo kamid ahaa iskuuladii boardingka ee ka tirsan Soomaaliland marka waa gudoomiyuu sheegay markii waqtiga lagu dhawaaqay imtixaankii shahaadiga ee Soomaaliland waxa jirtay waxa in wasaaradda waxbarashadu ay waxa deeq waxbarasho in siiyay wadanka Itoobiya waxa wasaaradda waxbarashadu soo gudbisay maamulayaasha dugsiyada heer gobol iyo heer degmo in la soo xulo ardayda grade-ka iyagoo lagu soo xulayo waxa la noo soo gudbiyay information-kii deedna waxa noo qabtay waqti kooban inaan ku nimaadno Hargeysa aan ku dhameysano baasaboorradii shahaadooyinkii iyo aqoonsigii Soomaaliland oo gobolada qaar inta badan aan gaadhin kullay saa loo ogyahay kharashaad badan baa naga waxyaabo badan baa naga baxay waxaan galanay hudheelo waxbaan suuqa ka cunaynay lacag badan baa naga baxay oo waxyaabaas annaga is dabarnay wax waxay wasaaradda waxbarashadu ay naga dabartay ma jirto deed markii intaas ka aan dhameynay waxa la noo sheegay in waqti dhow aan tagi doono galima waxaan ku sugnay Hargeysa intaas oo dhan insaan u sugnay in badan information badan u sweynay aan wasaaradda waxbarashada u tagtay waxa la gaaray heer ololaha ayaa la galay annagu ma aanan bixin laakiin in badan information badan ayaan sugaynay maadaama ardaydii nololodka ahayd in Puntland la qaaday bartami bishii 10aad aan arday badan oo garanayna inta badan noo sheegin waqtiyada ay tageen inta badan la soconay ilaa meel ay tageen la xiriirayni haddana anagu rajo badan qabno tolo malo waqti dhow walayni iman le wasaaradda waxbarashada inay leeyihiin bari ama saacada sabti yimaada axad yimaada isniinta yimaada aan ku noqonayno waxay gaadhay heerkii waqtiga codbixinta la dooranayay madaxda dalka waxaan tagnay gobolada aan ka nimidnay waan soo codaynay deed waan soo noqonay markaan soo noqonay halkan aan nimidnay sidoo kale wasaaradda waxbarashada ku noqonayna intaas oo dhan waxaan maalin bari yimaada saacada yimaada hawlaha iyagu waxay sidoo socdaanba waxa nagu qanciyay inay hawlad inay wasaaradda waxbarashada ka wareegtay arrinkayga oo u wareegtay arrimaha dibadda waxa li waxaan ay saajirin labadii bishii 12aad 2017 daraado sabti ahayd waxaan tagnay dhamaantii anagoo dhan wasaaradda waxbarashada horteeda
deedna waxaa nala hadlay qaar ka mid ah xubnaha wasaaradda waxbarashada waxay noo sheegeen hawlo iska dhowdhina sida hore una waxaa deedna markii aan nidhi waxaan u baahanay cid sare inaan la hadlo waxaan noo codsaday in askartii ama istaafyadii meeshu ay dibadda noo bixiyaan deed waxaan tagnay inaan isku dayno inaan u tagno wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu warkiinu inta badan wasaaradda arrimaha dibadda ayuu khuseeyaa waxaan aad uga xunnahay waxaa dhacay runtii asxaabteeda oo dhanna ay ka hadleen ardayda markii hore inta la hiyakiciyey lagu yidhi scholarship baa laydin geynayaa haddana ayna suuro gelin oo la leeyahay midmadoba wixii ku jira marka ardaydaas ma dhaanno aan odhan karnaa kuwa iminka dhacay 4 bilood dhigta waxba ma dhaanno kuwaasumaan la midnahay waayo waxaana dhaama kuwii caadiga ahaa ee aan Somaliland u sirrinay laakiin dhibcaha caadiga ku baasay ee iminka jaamacadaha dhigta jaamacadahana galay marka waxaad moodaa rajadayadu inay aad u liidato madaxweynaha waxaan ka codsannaa inuu wax weyn ka bedelo wasaaradda waxbarashada iyo maamulkeegaba si ay ugu adeegto ummadda uu keeno runtii dad aad u firfircoon oo wax ka bedela arrintaadana in si dhaqso ah oo runtii qadarin lana naloo tixgeliyo oo ardayda meel uun lagu jeeyay iminka oo aan sidaa lagu ilaabin baan rajayn dhinaca kale mar aan isku daynay in aanu wax ka ogaano wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland ee ardadani ka cabanayaan iyo waxyaabaha ka jira cabashadoodan ayaanu waxaan toos ula xidhiidhnay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland hase haatee markii aanu la kulannay waxa uu ka gaabsaday inuu gebi ahaanba arrintani ka hadlo isagoo aan si aan caddayn carabka ugu dhuftay inay arrintoodu ku xidhantay dalka Itoobiya Axmed Khalid Farax Ariel TV Hargeysa